dhammaan warahmatullahi wabarakaatu. Waxaan rabaa qodobkan inaan kaga hadlo aan kaga faa'iidaysto yani dhulka Soomaali galbeed iyo hadalhaynta beesha Jaarso marna la yiri waa Oromo marna la yiri waa Soomaali. Qofka Soomaaliga sidiisana inta badan waxaa la arkaa yani maahan qof wax sii dabagala oo sii raadiya oo yani asiga si xornimo ah wax u raadsada maahan. يعني وقف وحلو جد بيو ويحدي له قرح بدنا هذا الموقع هديك لو كتجا مركا بيش جارسو وبيل كمية بيلها الصوماليات وبيل الصومالية مرة دي أقول أنا وبيل الصومالية أمريكا اللي راح ملهن لكن قفل بعسلية صومالية كتاي جارسو وقبيل كمية قبيلة الصوماليات جارهان بيش الدر مركا وحكي كمية بيلها الدرات dir waxay u kala baxdaa lixda waxaa kamid ah cali madaxweyne jaarsa marka waa laf ka simid ah qabiilka cali madaxweyne deegaan ahaan asal ahaan waxay ku badan yihiin oo ay degan yihiin Ethiopia oo yani deegaanadooda waxaa kamid ah degmada Jigjig oo kale oo ay jaarsadu leedahay waxaa kamid ah Jimicsaani waxaa kaloo kamid ah Jaarsa Koro waxaa kaloo kamid ah hawadaay oo ah meesha dadka Soomaalida lagu laayay waxa kale oo kamid ah Baabili Gursum iyo Tuul Guleed Jaarso dhamaan deegaanadaas ay degtaa sidoo kale inta Jaarso dadka qaar si qaldan ha u dhahaan waa Oromo ama si ku talagal ha u dhahaan waa Oromo laakiin waxay kamid tahay dhibaatooyinka haysta ummadda Soomaaliyeed marka taa qof wadanka Soomaali dhaxdiisa degan marka tahay way adag tahay inaad aragtid qabiil Soomaaliyeed oo qabiil kale xuduud la leh oo aan Soomaaliyeyn laakiin marka Soomaaliya ka dhax baxdo xuduuda jiro marka aad hoos u baxdo Garre iyo Booran xuduud ay leeyihiin Jaarsi Oromo xuduud ay leeyihiin Ciise Afar xuduud ay leeyihiin Dagoodi iyo Sidaami xuduud ay leeyihiin marka beelaha Soomaali xuduud Jaarso waxay xuduud la leedahay dhulka Oromada Jaarso taariikhdeedii Jaarso waxay lahayd boqortooyo la yiraahdo Dawaaro boqortooyadii Dawaaro ee Jaarsadu lahayd waxaa la aas-aasay diinta Islaamka oo yani waaga jirtay 400 sano u fiirsaya waxaa la aasay 1050 ayaa la aasay boqortooyadii Dawaaro Dawaaro haddaad waa jilib kamid ah beelaha Jaarso jilib kamid ah Dawaaro marka Jaarso waxay u kala baxdaa ilaa 6 qabiil ay u kala baxdaa Jaarso waxaa kamid ah Waradhaqo waxaa kamid ah Warasayo waxaa kamid ah Walaabi Wara Oogo Dawaaro iyo Oromo dadka marka waxay isweydiinayaan wiil Oromo oo aan muranay oo hatta tamadhu aan qad ka soo gelin kara wuxuu ku leeyahay haddii Jaarso ay tahay Soomaali maxaa looga bixiyay waro waa afreer Oromo ah oo yacni ka tarjumaya reer marka wiilkii tusaale raansi waxaan ku dhahay Oromo iyo beelaha direed waliba dir kaliya maahan marka dhulka kaliya marka fiirisid beelaha xuduud leh Oromo waa dir iyo Hawiye u fiirso waxaad arkaysaa kor oo kale inta xuduud kale leh Ciise Gurgure Gugundhabe Karanle Gurre oo Akisha ah Jaarso ilaa Dagoodiye beelahaas xuduud leh anaga Soomaaliya nahay dad qabiilka jecelaanahay sax marka beelaha Daarood iyo Oromo xuduud leh wali ismay gaarin horta marka laga hadlo beelaha xuduud leh Oromada waa dir iyo Hawiye waan idin sheegay waa Gugundhabe iyo waxaa jirtaan u maleynayaa maalin guur inuu xuduud leeyahay marka aan ka soo tagno qabiilka aan ka hadalno beesha Jaarso sida walaalkeen Nabiil Cali uu sheegay waa sax waa beel cali madaxweyne ah waxay u kala baxdaa reerahaasi markaan saas leeyahay dadka waxay leeyihiin waro tusaale ahaan oo kale Waradhaqo iyo Warasayo maxaa loogu bixiyay waxay tahay dir afka Oromada ah iyo afka Soomaaliga ah mar walba wuxuu leeyahay xuduud afeed xuduud dhaqameed dadkaasi mar walba leeyihiin afkooda 77 ama 80% isku mid ilmo waa ilmo jilib waa jilib wax walba Oromada iyo afka Soomaaliga waa same waxba ku kala duwana yani waa sida Isbaanishka iyo Portugiiska marka taas marka laga soo gudbo anaga marka beeraha direed kale waxay leeyihiin wax la yiraahdo war fiirsada waxaad maqlaysaa warday
waxaad maqlaysaa wardiiq, waxaad maqlaysaa wargaal, waxaad maqlaysaa wargure. waxaasi waa afka soomaaliga. war waa reer, af soomaali af oromaduna waa waro. marka ha ku waalan haddii lagu yidhahdo waradhaqe iyo warasaya halkay ka timid haddii lagu yidhahdo waxaad ugu jawaabtaa, waxaad dhahdaa warday halkay ka timid ku dheh, wardiiq halkuu ka yimid ku dheh. marka yani taasi waxay caddaynaysaa yani in afka soomaaliga af oromada uu leeyahay yani xiriir afeed oo ka dhexeeya labadaasi meel. marka oromo iyo soomaali marka laga hadlane waa walaalo, waa dad walaalo ah oo wada dhashay. waxay ku wada dhasheen, soomaaliya keligiisa ma taagno, cirka kama soo dhicin, adduunyada waa lasla wada dhashay. waxaad arkaysaa tusaale ahaan Serbia, Croatia, Bosnia, Montenegro way wada dhasheen. waxaa wada dhashay kale waxaa maqlaysaa waxaa lagu leeyahay Faransiis Talyaaniga wada dhashay, waad adigu la yaabays, laakiin waxaa lagu leeyahay waa isku Latin. waxaad maqlaysaa waxaad la dhashay Ruushka iyo waxaa maqlaysaa iyo Ukraine oo kale wada dhasheen, saas waa la isku xigaa. waxaad maqlaysaa Germany iyo Denmark iyo waxaas, Danishka iyo Germanka way wada dhasheen. marka ummad walba waa sidaas. Hindida iyo Bakistaniyiinta iyo Afghanistaniyiinta waa isku qolo, carabta oo kaleenta sidoo kale. marka Soomaalida iyo Oromada kaliya maahan, waxaa isku bah Soomaali, Oromo, Canfar, ilahay kuma daraade, Alaba, Kambata, Beja, Agawe, Rendiile, ma badna ilaa waa dhowr iyo 20 beelood oo wada kuush isku ah, oo meel wada galayo, isku af ah, isla wada tiriya. qofka cafariga waxaa dhahdaa tiri wax ku dheh, lambarada tiri ku dheh, wuxuu ku leeyahay sida af Soomaaliga camal 2 4 4. kan oromada tiri ku dheh waxa uu kala ma duwanideen. ku salaamaya qofka oromada wuxuu ku leeyahay markaa weydiisid manfeeto kale may fadaasi afkii oromadii af mayga isku soo galaayo. marka taasi ayaan ku gudbin. dadka ummadahan waa ummad wada dhashay, meesha ku wada nool. alla ilaahay wax yani naga fog ee aan afna wadaagin, dhaqan aan wadaagin waa xabashida. marka xabashi ma ahan Ethiopia, xabashi ma ahan. xabashi waa qabiil kamid ah qabiilada Ethiopia, waana dad laga tiri badan yahay marka runta laga hadlo. xabashi waa Oromo iyo sorry aan aad iga raadlada. xabashi waa Amxaar iyo Tigray. wixii ka soo hara dhulkaas Ethiopia waa dhulku shiitiga. marka waxaan rabaa sidee ku dhacday Jars inay noqoto inay Oromo qaarkood sheegtaan. Jars waxay Oromo ku sheegan kartaa waxay tahay xuduudda Jars iyo Oromo way isdhexgalaan, waa la isguursanayaa, waa la isdhexgalayaa, sidaas la isku dhex raacaya. sida maanta Ciise Cafar ba isku dhex galay marka Djibouti tagtid, oo aan loo kala saari karin, oo ay dad isku dhex jira u yihiin. beesha Jarso dhulkaani markaan laga hadlo, dhulka Soomaalida marka laga hadlo, dhulkaani ka bilowda Harar iyo Hawaas ilaa iyo Shawa, Fatagar ilaa dhulkaas waa dhul Soomaaliyeed. waxaa deganaa beela Soomaaliyeed, colaadihii qaar baa ku kacay, ku milmay. waqtiga laga hadlaayo 1400 1500 waqtiyadaasi dhulkaasi aan ka hadlayo wuxuu ahaa dhul yani Soomaali deganeed, Soomaalida ku xooganeed. yani Oromo way yareed waagaas, Oromo wax aad u yar ay ahayd. waxaa kaloo aad u yaraa xabashida, inkastoo awood ay laayeen oo reer Yurub ay kaalmeynayeen, aad waxa u yaraa xabashida. waxaa tusaale kugu filan Soomaalida kaliya waxay leedahay ugu yaraan 4 boqortooyo oo isgarab yaala. waxay lahayd Walaashma, waxay lahayd Ayfaat, waxay lahayd Dawaaro, waxay lahayd Cadal, oo ka wada dhisnaa dhulkaasi waqooyi. hoos Soomaali waxay lahayd Ajuuraan, waxay lahayd ilaahay kuma daraade boqortooyadii kaleenta ee iyadana gosha ka dhisnaa, hadda magaceeda ma hayo. marka Soomaalidu sidaas ay ahayd. Oromo waxaa jira qoraale ka sheekeynaya inay Oromada ka soo kacday dhulkan koonfurta Ethiopia, inay ka soo kacday oo ay dhul balaarsi soo aaday Oromada waageedii hore. Oromada mar walba waxay ka faa'iiday jirtay isqabqabsiga Soomaalida iyo xabashida, way dhexgali jirtay, way qabsan jirtay. waxaa waqti hadda aanan 1400 iyo ku aadan Oromada waxay soo aaday dhulkan Soomaalida ay soo aaday. waagaasi boqortooyadii Dawaaro oo ay beesha Jaarsa lahayd waxaa wiiqay Portugiiska iyo xabashida wada socdo. waagaas ayaga aad u wiiqay. marka boqortooyadii Dawaaro way wiiqantay, tii Cadal way wiiqantay, Oromo way ka faa'iidaysay. Oromo waxay ku habsatay oo ay degtay dhulkii dadka Soomaaliyeed ay deganayeen. waxaa meeshaasi ku baaba'ay qabiilo badan oo Soomaaliyeed oo yani heybtooda iyo isirkoodaba Oromoobay. marka Soomaali gudaheedan ka naqaanaa. Soomaaliya qabiil kale u taga waa laba arrin.
ama qabiilkaasi wuu ku dhex milmaa qabiilkaasi oo yacni wuu ka mid noqdaa ama waa la laayaa sidoo kale xaggane laakiin oromo waxay kaga duwan tahay oromo waxay leedahay waxa la yidhahdaa gadaa yacni system la yidhahdo gadaa system gadaa wuxuu yahay haddii aad oromo dhex degan tahay ama haddii oromo ay ku qabsato yacni toosaad isku dhiibaysaa adiga isirkaaga waxaaga dhulkaaga dhan wuxuu noqonayaa oromo marka oromadu ma fiiriyaan qabiil oo qofka oromada haddaa weydiisid qabiilkaaga waa ayo haddaa weydiisid waxaa laga yaaba inuu aqooni waayo laakiin markaa udhahdo oromo yaa markuu yidhahdo wuxuu dhahaa waxaan ka ahay wallaga waxaan ka ahay aarsi waxaan ka ahay baali wuxuu kuu sheegaya deegaanka marka aan kasoo gudubno beesha jaarso sidaas waxay ku tahay beel soomaaliyeed jaarso kaliya ma ahaane waxaa beelo soomaaliyeed ah beesha la yidhaahdo qallu waxaa soomaali ah noole waxaa soomaali ah iito laakiin aaway dadkaas soomaaliya dadkii raadsan lahaa aaway adigaa waxaa leedahay oromaa tahay adigaa waxaa leedahay soomaali ma tihid adigaa qoti ku leh adigaa ninkii yacni soomaalima adigaa u urinaya waxaa rabaa inaan tusaale yar idinkaga siiyo dagaaladan hadda ka jira waqooyiga dagaaladan ka jira soomaali galbeed yacni dhibaatadoodii asalkooda meel ay ka bilaabatay dagaaladan ka jira soomaali galbeed waxay ka bilaabatay hadda waxay socdaan sanad iyo 7 bilood inay socdaan malayna dagaalka rasmiga ahi wuxuu ka bilowday beesha jaarso oo dhulkeedii ku dartay oromo dad reer jaarso ahi mar aan weydiiyey oo aan ku dhiiray micnaha sidee dhul soomaaliyeed ugu darteen oromo waxay yidhahdeen waxaan weynay cadaalad waxaan weynay nabad waxaan weynay horumar waxay yidhahdeen khayraadkeenii degmada jimcisaani oo kale ah degmo weyn oo khayraad leh in khayraadkeedii yacni la gurto oo aan qofkii degmada u dhashayna yacni afka laag laga geliyo oo aan waxba laga soo qaadin jiritaankiisi marka waxay yidhahdeen si aan u badbaadsana nolosheenii iyo jiritaankeenii annagu xor baan nahay meesha rabnaan ku darsanayna dhulkii soomaaliyeed 80% xuduudi jiray waxay la aadeen oromo marka adaa fogeeyey laakiin qofkaasi walaalkaa soomaaliga adaa fogeeyey adaa yacni soomaalimad u diiday adaa ganacsigiisii boobay adaa xasuuqay adaa dilay adaa oromo ka dhigay sax waxaa la yidhi soomaalida waxay dhahdaa rag ciil cadaab ka dooray qofkan haddaad adiga madaxa ku dhufato oo aad yacni aad u diido soomaalinimada sorry aad yacni qofkii haddaad ka dhigto qof ajnabi ahi qofkii nolol raadsanaya oo ka dhexbaxaya waxaan ognahay tusaale ahaan beesha ajuuraan la yiraahdo koonfurta Soomaaliya ka talin jirtay beel xoogan ahayd maanta waa beesha booran isku dhiibtay boorantay dhex degan tahay waayo beeshii Soomaaliya isugu tagtay waa la barakiciyay qabiil kale oo Soomaaliyeed oo la dayirtay ma jirto way baxday oromo ka dhex gashay hadda markaa ku leeyahay jaarsa oromo ah markii dad qaar ay leeyihiin ama jaarsa yacni aan Soomaaliyan markay ku leeyihiin bal weydii garrawa ay ku dheh ma ku sheegay gar wuxuu ma yaqaan oromo waa ku leeyahay qofkii wuxuu yaqaanaa kaliya dir iyo daarood iyo hawiyo yaqaanaa qaar xataa raxweyn aan Soomaalida ogoleen marka Soomaaligii wuxuu noqday wax afar nin oo ilma adeer ah ee Soomaali isku sheegtaan ayaga ummadii ballaarneed ee Soomaaliyeed ee malaayiinta ahayd 30 milyan 40 milyan madaxa gelinaysa waxay noqotay wax yacni la soo koobo waa waxba ka jirin oo yacni marti ah marka adiga qofka Soomaaliyeed markuu agtaada marti ku noqdo ee aad yacni dhibaataysid yacni uu ka guuraya marka taasi waxaan ku soo gabagabeynayaa beesha Soomaaliyeed ma ay jaarso ma oromo mise waa Soomaali runtiina waxaan jeclaan lahaa qofka Soomaaliga ahi yacni inuu marka hore ay barto yacni dadkiisa inuu barto inuu Soomaaliga u noqdo waxaan qabiil ahayn laakiin uu noqdo isir balaaran uu noqdo haddii Soomaaliga uu ku noqdo isir balaaran waad adigu leedahay marka uu ku noqdo waad raadsanaysaa dadkaaga Soomaaliyeed waad raadsanaysaa meel walba ay jiraan waxaa jira beel yiraahdo baayiso oo aad u si dab gurmaysa way si yaraanaysaa waxay degtaa Lake Tana waa bartamaha Ethiopia waa dad Soomaali ah cid taqaan hadda habeelaad hadda ma jirto 100 qofood ka badan hadda iyo 90 iyo waxay maraysaa iyo 5 qof maanta baayiso yaqaan kuma jiro waayo Soomaaliga adigu wuxuu ku yahay in adeerka iyo abtiga bis baayisadan aqoonin randiiladan aqoonin waxaadan aqoonin gabradan aqoonin waxaadan aqoonin ilaahay kuma darada sakuuyadan aqoonin waxaadan aqoonin ummadaasi Soomaaliyeed yacni degan geesaha kale ma taqaanid waagii dawladdii Soomaaliyeed 1997 ay raadinaysay dhulka Soomaaliyeed Kenya waa loo tagay waxaa lagu yiri
wadahadaladii Kenya iyo Soomaaliya dhex maray dowladda Kenya waxay tiri isirka Soomaaliyeed oo dhan idima siin karo dhulkooda, laakiin waxaan gorgortamaynaa dhulka North Eastern. yacni waxay ula jeedaan Eastern Soomaaliya degan, waayo beelaha Eastern degan ee Booni la yiraahdo xuduudan Moya degan Lamu dhulkaasi degan, iyo beelaha Rendiile iyo beelaha Sakuya, beelaha Gabre, beelaha Caweer waa Soomaali. marka Kenya saas u fahansan, laakiin Soomaalidii ma u fahansaneen oo Soomaalida Socdeen kaliya ogaadeen iyo dagoodiya intaas ayaga Soomaali u ahayd Wajeer iyo Mandera. marka waxaa jirta faham darri dhankeen naga haysato dadka Soomaaliyeed. haddii isirka Soomaaliyeed oo ku noqdo ummad ballaaran, aniga waxaan aaminsanahay Oromo iyo Soomaali inaysan kala tiro yareen ama ay Soomaalida badan tahay, waayo dadka Soomaaliyeed tirkoob laguma hayo. dhulka haddaad isku fiiriso dhul aad isugu dhow maaha, waa dhul kala ballaaran. laakiin waxaa arkaynaa in qofkii Soomaaliga ahay yani dadkiisiiba uu yani ka dhigto ilma adeeradiis ama in abtidiis iyo dadka oo yaqaano kaliya. marka beesha Jaarso runtii waa la dhibaateeyey abkood isirkood waa la dhibaateeyey. Jaarso dhulkeedii Oromo ugu maydarin jecel Oromo u qabto iyo Oromo inay tahay ugu maydarin, waxay ugu dartay inay hesho nabadgelyo, inay hesho yani horumar, inay wax yani ku noolaato meel deegaan ay ku noolaato ayay ugu dartay. waana cod, waa vote. berri haddii la heshiiyo oo yani dhibaatada laga daayo oo la yiraahdo aan midowno oo aan iswalaashano oo anaga dad Soomaali ah naga daaya qabiilka dil yiraahdo referendum cod petition ajir adduunka waa la qaadaya, way soo laaban karaan dhimanaan. laakiin Jaarso maxay tahay maanta? Ciise raba inuu Oromo ku darsado, balka waran adiga aan soo Afar inuu ku darsado rabo. Ciise raba inuu Shan iyo Afar la aado, ka waran. marka isweydii adiga markii yani Soomaali markay qabiilka sidiisa waa basal hadii la furo mid kale ku xigto, mid kale ku xigto, basal yar soo haraysa oo aan waxba ahayn. laakiin markay isku dhagan tahay waa basal, waa hal xabo isku dhagan. adiga markaad maanta qabiilka ku dulmiso, qabiilka ku dhibto, qabiil walba dantiisu ka raacanaya. qabiil walba adduunka haduu hormaray sidii hore maahan. reerka Ilaahay ma noqdo 4 oday ma noqdo, meeshii uu ku saldhigi karo dagaa joojoob isku dhamaaday. yani haddii noqoto in la isdilo oo isdilkan uu noqdo isdil iskor fadhiyo aan la kala tagaynin, meelaha qaar kama jirto. wallahi maanta waxaan ogahay Soomaaliya haddii cod la qaadi lahay, beelo badan oo Soomaaliyeed waxay dhihi lahayn anaga danteena aan ka tashano, aan meel isku aruurno. waayo beelo badan oo dhibaataysan jirto oo Soomaaliya ku dhibaataysan. marka laakiin intaas oo kale waxay ku fiican tahay in yani leys afiyo dadkii yani runta inay isugu yimaadaan. haddii af Soomaali iyo hadal iyo yani waa ka hadal badan, haddii la isku jijibiyo waa ka hadal qofku ka hadal badan, laakiin kaamil niyad bandaan karo. niyadda mar walba waa meel, niyadda mar walba meel ay taagan tahay. waxaad arkaysaa Ciise oo kale maanta dhalintii Ciise oo kale maanta inay kacsan yihiin oo ay leeyihiin anagu nabad iyo caan iyo waxba kuma haysana deegaankeeni ay anfara noogu daro ama waa inaan ismaamul yeelanaa inay kacsan yihiin. sax soo ah. marka qofka Ciise ay maanta inuu adiga oo Soomaali ah inuu ku yiraahdo kuma rabo oo qof afara oo doonto, ceebteeda adigaas kale waana dareemi kartaa inay ceeb weyn tahay. taariikhda maanta in ka soo galay beesha Jaarso taariikhda haddana ma soo koobi karto taariikhda beesha Jaarso, laakiin waxaan ku soo koobi karaa kaliya inay tahay beesha Jaarso inay tahay beel Soomaaliyeed oo ballaaran. dhulkii Soomaali asalka u lahaydna dhulka Soomaaliyeed maahan guda iyo Qalaaf iyo Jigjiga maahan. dhulka Soomaaliyeed waa Harar iyo Awaash, dhulka Soomaaliyeed waa Hawada iyo Jinacsani. dhulka Soomaaliyeed waa dhulkaasi, laakiin dhulkaasi dadkii deganaayay ma noo xisaabsan. marka runta ka hadal nooma xisaabsana, buuga nooguma jiraan. waayo waa Soomaalinimadan ka saarna. Soomaalinimada anaga waxay noo tahay agteena qabiil yar noo tahay. marka dhammaanteen waxaanu leenahay Soomaalinimadu waa isirka Soomaaliga. qof walba oo ka tirsana wuu ka tirsan yahay. qof kale oo Soomaali ka xigsan karay ma jiro. dagaalada hadda jiraan waxaan dadku waxay ka bilaabeen Gari iyo Jaarso weligood is dhex deganaayeen, waa laba wada degan. dadka qaar waxay ku leeyihiin labada maamul goboleed kililka 5 iyo kililka 4 waxay rabaan nin walba inuu qabiilka inuu soo jiito oo yani sidaas oo
reeraha loo kicinayo inuu reer walba inuu dhankiisa soo maro. laakiin waxaad ogaataa markii jaarso la dhibaateeyey iga raali ahada, markii jaarso la dhibaateeyey dhulkeedii ay rartay jigjiga loogu daba tagay ganacsiga. waxaan arkay dad reer jigjiga oo liya ganacsigana waa nagala wareegay, annagana waa yani sida qaxootigii waa nala masaafuriyey. qof reer jigjiga oo jigjiga ku dhashay oo deegaankiisii tahay oo laga masaafuriyey ka war soo ceeb maaha. yani markaa markii jaarso dhibaatadaas dhacday, jaarso waxay tagtay Addis Ababa federaalka, waxay tiri waxaan rabnaa in codeyn loo qaado magaalada jigjiga. colaad ugu xun hadda meesha ka bilaabanaysaa. waxay yidhahdeen in codeyn loo qaado magaalada jigjiga. meel u dhow magaalada jigjiga oo la yidhahdo Tulli Guuleed oo ay jaarsadu degan tahay, maanta waxaa ka suran calankii oromada. jigjigay maanta taagan tahay sheekadii. marka haddii yani sida yani isfaquuqa iyo yani isxakameyn la-aanta iyo dhibaatada ay socoto, waxaad ogaanaysaa in yani ushii mar ay jabayso yani lasugu imaan doono marka dambe ugu dambeyn yani waxay noqon doonaan yani wax ka kaca. marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay colaadan oromada iyo soomaalida ilaahay ha dejiyo. wax walban waxay ku fiican cadaaladda. haddii cadaalad la helo qof dhibaateynayo ma jiro. qofka hadduu gurigiis cadaalad ugu hurdo, cadaalad ugu soo tooso, dhibaato ma rabo. dhibaatadu waa yani waa wax naftaada aysan ogoleen. laakiin haddii cadaalad darro aad geshid, adiga yani way ku jiidanaysaa dhibaatadii. haddii qofkii cadaalad helo, haddii uu nabad u helo, haddii meel saaxda u helo, qofkii yani colaadna way dhammaanaysaa, dhibaato dambana ma dhacayso. Oromo iyo Soomaalina way wada deganayeen. aniga haddii la yidhahdo Oromo iyo Soomaali, xisaabtankayga wuxuu ka bilaabanayaa dhulka gudaha wuxuu ka bilaabanayaa dhulkan Shawa iyo Meeraas. marka dhammaantiin waa idin salaamayaa. waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.